kuna waxaan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka himilada sare ee telefishinka aqoon bile oo toddobaadkii waqtigan oo kale si toos ah inooga daawataan. toddobaadkan waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbinayaa 9 xirfadood oo ay muhiim u tahay qof kasta xilligan casriga ah ee la joogo. maanta waxaan la wadaagayaa 9 xirfadood oo ay muhiim u tahay noloshaada wax badanna ka bedeli doonta hamigaaga. waxay ku anfici doonaan marka aad gasho jaamacadda. sidoo kale waxaad maalaysaa xirfadahan haddii aad barato inta ka dhiman noloshaada oo idil. haddii aynu ku bilaawno xirfadda koowaad waa time management ama maamulitaanka waqtiga. dunida maanta si xoog leh ayay u horumaraysaa. waxaa muhiim ah inaad barato istiraatiijiyada maareynta waqtiga oo si xoog leh looga waramo. haddii la soo koobo waa inaad iswaafajiso waxbarashadaada, shaqada, madadaaladaada iyo sidoo kale nasashadaada. 2 inaad aqbasho dhaliilaha lagu soo jeedinayo adiga. marka aad yar tahay oo way aragnimadaadu kooban tahay waxaa dhici karta inaadan ogoleyn in wax laga sheego, laakiin ogow in wax laga sheego waxa ay qayb ka tahay nolosha. waxa kala duwan dhaliisha wax dhista oo inta badan ka timaada qofka ku jecel oo ku sheegaya waxa noloshaada u wanaagsan, iyo dhanka kale dhaliisha aan loo meeldayin ee in lagugu dhibaateeyo loogu talagalay. tan dambe cidnaha ka aqbalin, laakiin dhaliisha wax dhisaysa ee qof ku jecel ee kaaga imaanaysa qaado oo ka faa'iideyso. 3 research ama waxbaaristu. inaad wax baaran karto maanta waa xirfad aad muhiim u ah. waa inaad barato xirfadaha sare habka internetka wax looga baaro. arrintaasi ha sahlan xilligaaga waxbarashada iyo xilli kastaba aad ayay muhiim u tahay xirfadani. qodobka 4 ama xirfadda 4 waxay tilmaamaysaa ama leedahay habka mashaakilka loo xaliyo, sidoo kalena sida ugu wanaagsan loo fikiro. waxaa games badan oo maskaxda lagu dhiso isla markaana lagu baran karo habka mashaakilka loo xaliyo iyo habka fikirka tulmoon. sidaa daraadeed xirfadda loo yaqaano problem solving and critical thinking, habka mashaakilka loo xaliyo iyo hab fikirka tulmoon ama si wanaagsan inaad u fikirto, waxay qayb ka noqonaysaa ama ka qayb qaadanaysaa inaad gaarto ama inaad nolosha ka gaarto meesha sare ee aad doonayso. xirfadda 5 aan barnaamijka ku soo qaadanayno waxa weeye waa inaad barataa habka programmingka. xirfadan oo la yiraahdo software skillska waa xirfad ka saacidaysa ama baro xirfadan waxay qayb weyn ka qaadanaysaa noloshaada. sidoo kale ogow shaqada ama xirfadda softwareka waxa ay muhiim u tahay noloshaada oo idil. sidaa daraadeed ka faa'iideyso xirfadda tan oo ah mid muhiimad gaar ah ku leh adiga. xirfadda kale waa xirfadda ama baro habka wax loo jeediyo. habka wax loo jeediyo, dadka loo hor istaago, laga hor hadlo, wax loo faa'iideeyo waxay qayb lixaad ka qaadanaysaa kaalinta aad ka doonayso nolosha. sidaa daraadeed baro habka wax loo jeediyo waa xirfad kale oo muhiim ah. inaad wax soo jeedin karto oo aad qancin karto waa bulshadaada ama dadka waa xirfad kale oo maanta aan laga maarmaynin. meel kasta oo aad ka shaqeyso xirfadda waxay muhiim u tahay noloshaada. xirfadda kale waa baro xirfadda gorgortanka. gorgortanku waxa uu ka mid yahay xirfadaha nolosha muhiimka ah. qaybsiga shaqada iyo wax kasta oo noloshaada ka mid ah gorgortan ayay u baahan yihiin iyo wada xaajood inaad ka geli karto. haddii xirfaddan aad ku wanaagsan tahay dad badan ayaad ku qancin kartaa ra'yigaaga. qodobka kale waxa uu leeyahay habka emailka loo soo qoro. inaad barato habka emailka loo soo qoro oo wax loo codsado waa muhiimad ama mid muhiim ku ah. marka aad rabto inaad codsato shaqooyin ama waxyaabo kale inta badan emailka ayaa lagu qoraa. emailkana waxaa inta badan luqad ahaan loo isticmaalaa luqadda Ingiriiska. sidaa daraadeed baro habka emailka wax looga qoro waa xirfad kale oo adiga ku anfacaysa. xirfadda 9aad aan barnaamijka kugu soo gudbinay waxay ku leedahay baro habka wax loo baran karo. xirfadda tani iyada ugu muhiimsan xirfadaha aan soo sheegnay. haddii aadan aqoon xirfadihii hore oo dhan inaad barato kuma suurto galayso. sidee maskaxdu ay macluumaadku u keydisaa? marka aad xifdinayso waxaa laga maarmaan ah si xilli dheer ay maskaxdu u keydiso macluumaadka
ayaa xirfadan lagu bartaa. haddii xirfadan aad barato wax kasta oo aad dhigto way kuu sahlanaanaysaa, aqoontana meel fiican ayaad ka gaaraysaa. xirfadda tani oo ah habka wax loo barto waxay kaa saacidaysaa inaad noqoto qof nolosha ka guul gaara, sababtoo ah xirfadda tani waxay ka fududahay ama ka wanaagsan tahay dhowrka xirfadood ee aan kor ku soo sheegnay. sidaa darteed xirfadda tan oo ah baro habka wax loo barto muhiim ayay ku tahay daawade. halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa daawade barnaamijka himilada sare ee telefishinka aqoon bile oo toddobaadkan aan kaga hadlaynay 9 xirfadood oo laga maarmaan ay u tahay qof kasta inuu barto xilligan casriga ah. waxaan ahay Shucayb Deerow Dhaqane.